هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا جماعة أمة سومالية كستو جوجتان أمة سومالية معنا على فيسبوك وحا لبد دحيا عايو دمر سوماليات إيه رك سوماليات أو دهاي وحا قادنا دين تمسيحية مدشان 8 سنة laga joogo dumar Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan message kaaniti aad ila wada ogaateen qaarkiin waxa laga yaabaa inaysan ogeyn dadkaas maanta message ka soo diraayo ay dhahay anaga masiixiyaan qaadana inay kamid yihiin dad xibin ka soo noqday baarlamaanka Soomaaliya waxayna noogu wacd maanta ee noogu dhawaaqaysaa inaan ka soo qayb galno diinta masiixiga inaan kamid noqono a'uudu billahi min shaytaani rajiim ilaahay ciziga ee qalqaale ee maanta intaan iga dhigay sumcadeeda soo gaarsiiyay islaamnimo ayaa maanta ka tuugaya inaan maanta gadaal ii celin alxamdulillah shukr ilaahay asaama hadis kale waxaan rabaa inaan wax ka ogaataan gabadhan la dhahayo Nasra Cabdisalaam magacayga waxaa la yiraahdaa Nasra Cabdisalaam waxaan deganahay Sweden magaalada Eslöv waxaan ahay Soomaali masiixi waxaan qaatay masiixiyada 15 sano ka hor ciise waa badbaadiyahayga waa ilaahayga nool Soomaalina waxaan u baryayaa inay wada qaataan masiix waxay tiri Soomaali waxaan u baryayaa inay diinta masiixiga qaataan Nasro waa hooyo waa ayeeyo waa abuulan maanta waa qof weyn oo da' ah waxay noogu wacaysaa diinta masiixiga inaan u laabano Nasro 8 sano ka hor dawladda Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariista waxay kitaabka ilaahay quraankiisa 104 ku soo dejiyay maanta nafaray ilaahay ina maanta islaamnimadeena iyo diinteena iyo karaamadeena maashis aan ku ilaashano waxay ugu dhaaratay inay tahay islaam ayna maanta dumarka Soomaali ximin matala ay tahay ee qaranka Soomaaliya kamid tahay ayay kitaab u martay 2004 dawladda Cabdullaahi Yuusuf xibin kamid ayay ahayd Nasro waxaan idin weydiinayaa xubnihiina baarlamaanka kamid ee maalin kasta mooshinka dagaalka colaadda madaxweynaha ugu sareeyay ilaa baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada ha ahaadaan maalin kasta waxa isku qabsataan jago xibin ay isku qabsataan ya bal maxaa idin ku aamina horta islaamnimadiina sideen ku aamina Nasr ayaa maanta soo orday meeqa ayaa qarsoon oo Nasr oo kaleete ma idin aaminayno waxaan ugu baaqayaa dumarka Soomaaliyeed ee matala ee xildhibaanada sheeganayaan hadaad gaala tihiin oo ilaahay maanta aad gujigiisa inta ka leexateen diinta masiixiga aadeen ee anagana guji kale aan ugu dhuumanaysaan ilaahay ha ina cadaaba jannada ba arkaysaan inaad message-kaana ka soo jawaabtiin gaalnimadii aad qaadateen haday kamid yihiin qofkaas maanta ee da'da ee maanta ayada culugiisan ag taagan tahay dhaas diinta masiixiga 15 sano ka hor aan qaatay 15 sano 8 sano ka horna ay ku dhaaratay kitaabka ilaahay soo dejiyay ay ku dhaaratay in islaamka ee Soomaali ordayso yaa lees aaminin waxa maanta kuraasta ku fadhiyo anigu waaba aaminaad waaba iyo tagtaybo maxaa yeelay kulligood sidaan ku jirto